haddii aad ku cusub tahay channelka Somali Universe fadlan subscribe dheh rukumana batanka notification-ka si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ugu dambeeyay aan soo upload kareyno mahadsanid barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa maraaxisha uu marayo qofka caruuska ah habeenka aqalgalku waa habeen qurux badan oo ay wada qaadan doonaan caruuska iyo caruusada haddaba diinteena islaamka waxaana bartay dhaqan walba oo ku saabsan dhaqamadeena xitaa habeenka aqalgalku waxa uu leeyahay aadaab u gaar ah oo loo baahan yahay in ay maraan caruuska iyo caruusada kaas oo ay ku helayaan ajir balaaran oo kaga yimid Allah subxaanahu wa ta'ala xagiisa walaalkayga muslimka dhalinyarada ah oo uu ku soo wajahan yahay habeenka aqalgalka waxa maskaxdaada ku taagan oo aad mar walba isweydiinaysaa sidii aad yeeli lahayd ama qaabkii aad ula dhaqmi lahayd xaaskaaga habeenka aqalgalka markii aad tala weydiisato qaar ka mid ah asxaabtaada oo kaaga horeeyay barnaamijkaasi ayaa waxay kuu sheegayaan waxyaalo qaar sida in aad cunto waxyaalo macmacaan ah ama aad ku dhacdo waxyaalo qaar oo xaraam ah kaas oo kaa qaribaya habeenkaaga quruxda badan ogow ma jirto waddo loo xadiday caruuska iyo caruusada oo gaar ah oo ay ku dhaqmayaan balse waxaa lagula talinayaa inaad la timaado degnaan farxad reenreen dheeri ah habeenada ugu horeeya ee guurka kaasi oo laga yaabo inuu baaqi sii ahaado inta cimrigiina ka dhiman waxaa lagaa dalbanayaa markii aad dukato labada rakaac ee salaada ah aadna akhriso ducada sunnada ah in aad bilowdo degnaan dhimnaan dheeri ah haba ahaatee meesha ugu dambeysa ee aad gaarsiin karto adiga oo aan ku degdegayn galmada wax diidayana ma jirto inaad dib u dhigato maalinta labaad haddii gabadhu aysan diyaar u ahayn habeenkaasi aqalgalka wax waajib ah inaad soo quweysato isa soo qurxiso isa soo carfiso aadna xirato dharka ugu quruxda badan aadna u bilowdo gabadhii sheekooyin jacayl ah kaas oo aad ugu hadlaysaan mustaqbalka iyo xaaladda guriga sida ay noqonayso ogowna in gabadhu ay habeenkaasi rajaynayso galmada ayna aqoon durugsan u leedahay arrinkaasi waa walwalka ugu badan iyo caruuska iyo caruusadu ay maskaxda ku hayaan walaalkayga muslimka ahow waxa aad la joogtaa xalaashaada Allah subxaanahu wa ta'ala uu idin daalacanayaa raali ayuuna idinkaga yahay bal waxa uu idin qorayaa ajar maraaxisha kugu waajibka ah inaad marto habeenka aqalgalka raac talaabooyinkan soo socda talaabada koowaad waxaa la sunaynayaa in qofka caruuska ah uu gacantiisa saaro madaxa caruusada kadibna uu u magacaabo Allah subxaanahu wa ta'ala kadibna uu barako ugu duceeyo sida xadiiska saxiixa ah ee Imaam al-Bukhari Abu Daawud ay soo saareen oo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri haddii midkiin uu guursado xaas ha qabto foodeeda kadibna ha u magacaabo Allah subxaanahu wa ta'ala kadibna ha u bariyo barako kadibna ha dhaho Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alayhi wa a'uudhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi oo ay macnaheedu tahay Allahayow waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda iyo khayrka aad ku abuurtay gabadhan sidoo kale waxaan kaa magangalayaa sharteeda iyo sharta aad ku abuurtay gabadhan talaabada labaad waxaa la sunaynayaa in caruuska iyo caruusadu ay wada tukadaan laba rakaac oo sunno ah kadibna ay Allah baryaan salaada kadib talaabada saddexaad waxaa la sunaynayaa in qofka caruuska ah uu u jilcanaado caruusadiisa uuna u keeno wax ay cabto ama ay cunto sida rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam laga wariyay uuna ku yiri akmalul mu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli oo ay macnaheedu tahay mu'miniinta ninka iimaankiisa ugu dhameystirka badan yahay ayaa wuxuu yahay ninka ugu dabeecadda wanaagsan iyo sidoo kale ninka ugu dhiminta badan ama ninka ugu naxariista badan xagga ehelkiisa waxaan shaki ku jirin in jilcanaantaasi iyo dabeecad wanaagaasi ay gabadhu ka baabi'inayso cabsida badan ee ay kaa qabtay habeenka aqalgalka ayna u furayso waddo ay kula macaamisho habeenkaasi quruxda badan talaabada afaraad ee lagaga baahan yahay inaad la timaado habeenka aqalgalka ayaa waxay tahay inaad la ciyaarto aad qoorqoorayso aadna dhudhunkato gabadha inta aadan u tagin ka hor talaabada shanaad ee lagaga baahan yahay inaad la timaado habeenka aqalgalka waxaa la sunaynayaa in caruuska uu akhristo ducadan inta uusan u galmoon xaaskiisa sida xadiiska saxiixa ah ee uu soo saaray Imaam al-Bukhari ibn Abbas radiyallahu anhuma uu ka barinayay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam uu ku leeyahay haddii midkiin uu tago ehelkiisa ha yiraahdo bismillaah kadibna ha ku duceysto Allahumma jannibna shaytaan ilaahu naga fogay shaydaanka
wajanib shaydaana maa rasaqtana waxaad nagu arsaaqdana ka fogay shaydaanka oo ula jeedo caruurta fain qudiya baynahumaa haddii dhexdooda uu wax ka dhasho waladun caruur lam yadurhu shaydaanu abada shaydaanku weligiisa ma dhibi doono caruurtaasi tallaabada lixaad ee lagaaga baahan yahay inaad la timaado habeenka aqalgalka qofka caruuska ah waxaa u bannaan inuu xaaskiisa u tago qaab alaala qaabka uu doonayo laakiin shardiga uu yahay in uu meesha kaga tegayo ay tahay farjiga oo keliya arrinkaasina waxaa u daliil ah hadalka subxaanahu watacaala uu ku leeyahay suuratu lbaqara nisaa'ukum xarthun lakum fa'tuu xarthakum annaa shi'tum oo ay macnaheedu tahay xaasaskiina ugu taga farjiga dhan walba ha ahaatee dadaal horay iyo dhinacba tallaabada toddobaad ee lagaga baahan yahay inaad la timaado habeenka aqalgalka waxaa la sunaynayaa in haddii qofka caruuska uu u baahdo inuu dib ugu laabto xaaskiisa in uu weys qaato si uu ugu firfircoonaado sidii hore uu ka ahaa qubayska ayaase kasii wanaagsan daawadayaasheena qiimaha leh waad ku mahadsantihiin daawashada fiidiyogan qaybta xigtana waxaan ku soo qaadan doonaa waxyaalaha kaa mamnuuca ah habeenka aqalgalka haddii aad ku cusub tahay channelka Somali Universe fadlan subscribe dheh rukumana batanka notificationka si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ugu dambeeyay aan soo upload kareyno mahadsanid